madaxweyne muuse biixi cabdi su'aalaha waraysigan waxay noqon doonaan wax adiga reerkaaga carruurtaada iyo noloshaada ku saabsan marka ugu horeysa imise jir baad madaxweyne 70 kamana waayay waa gartay bisha dhalatay maxaa soo maya miiga ku dhashay meeshaan ku dhashay sanadkii ciidan garmus sanadkii hablaayo ee dibaal ahaa meel baa la degay kanti baa la timaad xagee farweyn hoosteeda oo xagee in farweyn xagga saaki xigtay loo sii alfarsanayo gobolkee marka maapka Soomaaliland noo sheegay hargeysa bulshada magaalada farweyn la yiraahdo xadka marka laga talaabo wax yar hoos loo socdo iyo jiilal arab si loo sii alfarsanayo hooyaday aabbaha reemiye ahayn labadu reemiye ma curada tahay ma dhaxdaad ku jirtaa ma gara dambeys ba adaa ku weyn aabbaha ma hooyo un bay wada joogeen mise eedina way jirtay iyo islaan kale aayo jirtay oo aabbaha ilmo dhashay hooyada alla hadaayo hooyo cadar way nooshahay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliland soo maro hooyihiis nooshaa tahay soo wiil yarbi intaas waxay muujinaysaa in wiil yar tahay xiriirka adiga hooyo inkastoo de wiil la dhalay aad tahay laakiin haddana dee xilkii madaxtinimada iyo wax makaa mashquuliya hooyo guriga degan insha Allah adiga ku sheeg ما شاء الله الله أبو بركة ما يقرر على هذا لا بعد وين بعد يا عرفتنا وين صار تدور والله وضع غيره ما هو بكري بعد كل حوم هيسوا ما شاء الله إمي صار رجع عرفت صدق المها أبوير بقى إمي سجل والله كبد قال كل صدق توصل بفرح المها أبوير أفريتو واقفت مدحوين مروده مدحوينها waxa loogu yeeraa marwada koowaad maadaama bax koowaad iyo bax labaad ay jirto xaasaskaaga tii adii marwada koowaad ku ah xaaska marwada iyo wax waafaq gaala wada tala loo keenay haye hablaha Soomaaliya waa gooy yaani hablaha la kala saaro way ku simeeyeen ayda yani marwada wadahay hanu kala saarayna qolada Mareykanku waxay noo keentay marka marwo koowaad iyo marwo labaad adiga kuma xaaska si oo miweeyeen miyara madaxweyne waxaan nagu maqaalaa haddaan qaldaneen inaad gurigaaga u hoyato sida qofka caadiga ah oo madaxtooyada seexanin oo shaqaale ahaan una soo shaqo tagto taa ma jirtaa gurigaaga ka soo kacda madaxtooyada shaqo loo timaada waxa doon u soo leeyahay gurigaaga u hoyataa waa u soo leeyahay waxa doon markaad muusiga caadiga ahayd ee kulmiye xorriyadeedii ah shakhsiyeed ahayd waa la waayay waxaan qof soo tooso danta uu leeyahay iyo halku doono qofku doono aroorta aad ama kaas ma jirto protocol wax walba ma wasoo waana wax si qorshaysan oo sida halkan markaas la wadaado number 2 haye caafimaadkaagi marka doonto aad cadceedsanaysi ba hadda doonto inta kilomitir doonto aad weynaysi ama aad jimicsanaysi isma waayaan maanta dadkii kaftankaagi iyo saaxiibtinimadii iyo kuwa aw sheegaysa iyo wax loo protocol marka sheekho meeshan waa meel aad iyo aad dadka nin xaqiiqo ka soo qaado marka aadan shaqada madaxweynenimada haynin ee waqtiga caadiga ah maxaad qabataa ma wada dhamaatay madaxweynenimada shaqada ma laga rabo jabiba ma waa tu laga rabo xama mar walba iyo RBC ah ku yaala waaga marka saada riyoodkada ilaa iyo habeenkii awas dambe hawlba way bis maalin la sato maahan haddana sana kale oo shaqeynaysaa jimcaha kale soo guriga ma joogtid ilmaha jimcaha wali joogaysaa xafiiska tegmaysi laakiin hawlo ku taala waxa kuugu dhib badan marka hawlaha caadiga ee dawladnimada laga soo tago maxay tahay oo dadka kala kulanta dadka waxa igu dhib badan ee la kulmo waxa weeye dhibaatooyinka Geeska Afrika iyo Soomaaliya haysta ee shaqo la'aanta ku tahay ee caafimaadku oo ka tahay ee tacliintu oo aad ku adkeeyay kor loo qaado ay ka mid tahay ta kale Soomaaliland waa jira oo haddana dhibaato gaar ah qaba oo aan baasaboorka soo aqoonsanayno meel ku tago qofku marka dadkooda yar badan in Soomaaliya doonaya in waxbartaa doonaya oo maalba dhibaato markaa ay marayso dhibaatada kale waxa weeye jaarkaagi oo labadii goonaya yamana way goonaysaa marka dawr ka soo marka wad ka walbahataa marka kaliya gaadha ay soo gaadha arooba reporkeeda doonida soo baxday dadka waxba la keenay xageed wararka ka hesha xageed ka dhigaysataa systemka dawladda ay warwatay systemka ku keenay
ciidanka meel ma joogo oo dhisayaasha ma joogaan oo warkii lasoo soo xidhaayo waxa Soomaaliya iyana gubanaysa oo maalin walba qarax iyo dhibaato iyo inta joogta iyo shaqaysa kala dilay iyo kala buuqaya inta ma qood galaysa soo gareynayso daada subax markuu waaga bariyo oo salaada fajr tukato inta waxay gar warka atoosha sida balaashaya aroobo kana ka qarax waa gartay markaad salaada tukato soo fariisato waxa kugu horeed qabat maxay tahay horta waa ducaysta ma sha Allah maadun baa ducaysaa mise dalka iyo dadkana u ducaysaa horta marka hore nafteeda ducayo ilaa fiican cadaabteeda naga dambaysa hadii aniguna hadal badana marka horta bal ilaa hawla faahiyo ana baxsana marka dambana qoyska iyo dalka iyo dadka duceeyay wax balwada mali ha hadal badana balwadaad waa hadal intaas بدأنا شوية كل شيء. من عين سؤال رأينا كويتيو. دتك أنكو أقولين أن كل فلقلين سيدي ذوق كلا. أنا يلا دواني كشيء كيسان ورئيسي أنت عم بالله ونجي إسككرتميني. وحلا يبني فكر كلا كهيسا مصبيح كلا. دتك فكر كلا كهيسا نين حرحيران أسكري أها من وقع كود جيل جلو أو ميجي ونقنايا. جوابت الله يسمعتها. أنت وارنتو. هي. أنت وارنتو. هي. قبل قاسم تقال. قاسم الله ونحرسته قبياجي وينوان قرن معاني قرار قبل غيرها مركب معاني قرار اسكو جرا تاي قفل وعيك مركب قف وحرك عن الحكم ودلعات حكم ودلعلمية ليام والبحرك يا أرجو ونعكسن وفرحانة وكفت واي والبحرك يا أرجو ديقسية أو بقول سورية أو ليام والبحرك يا أنا بخير عندي جوة وأسباب أو ما ترش هذه لها دواء والبحرك يا أنا قبل أو رقك هذا ولا والبحرك يا أرجو في المجال وتشجعنا بني أنت كاسب كلا. هل خطوته؟ واقرتي. سؤال شو بالضبط؟ مرة هو يديو. هواية ده جور مجابة يتعيش هاي ما هي سهل تجيسته كبدة ما دعوتها وحبي أدي أتعيش هاي كم مشغول شو ما ترتا. حبي هو تبدأ المسألة. حاجة. إلا يصور عليها حبي يو من أنا كلام قرب واحد وش دعوة ولا وحيلات هواية. هاي. ما كنا كيريها حبي يسوعه هذا دون خبر سؤال ما تفوتش سؤال صار حبي ودي إنرجي وهي أو حبي تشعريها أو نور شرب بخارسة أو بداري مركم مال حتشو قرمدولها تشوفه وحتى وقتي وثلاث شهور خاف هذه المشكلة لها حل صعب صراحة مركات هارش وروح فرعية مشكلة دي مركب هذا قرمدولها هذه ما بيصلح وكان كلامه بيان بوست شيريان وحدودنا intiisa la qaato markaad ashawdo waqti aad soo bogda aad way badan arko wuxuu noqonayaa nin wax kasta oo yimaado ka fiirsanaya oo qabow oo hataa hada da'deed ku jirto marka dhinac ku jirto hada qiyaasii hay hubbigan oo imaano maxaa jeceshay waa ku soo haye markuu daa gaaran oo noqdaan cirro noqdana wuxuu jecel yahay in markaa wax uu wanaagsan ka shaqeeyo markaa waxa jooga da'di ducada hubbiga wadco in kuwa soo dhamayst kubad heesama dhigtay heesa jacayl gabayo kuwa gabayo reeraha la sutriyo la isku fadaxday nin la murmo tayada inuu meel barto oo markaa waxay ku sugayay waa soo dhamayst in waxaan waqti wariyaal ilaahay laga yaabo waraaqada naga dambaysa adeer kada adeer sugayna iyo arigoo dee baqanayo oo ila akhir ma sha Allah daadi dama jooay radiga akhiro batay xaqiiqa akhirada ilaahu hada tarbiyo quraan akhriska isku tiin قرآن كريم وكسر ما شاء الله وهذا ما ذكر يقول قلبه واحد برتين ما نقول لك ما برتين ما شاء الله جامع علماء ذهرين روحه ولا أحمد شفتوا ما شاء الله تواد الله بس كبرتي أنتوا سقران كي مدرسة هي قلنا ضمن برضه ما سيد براء القرن به مركب ورا قول له حمر مدحوين آدم كوم هالعلنا يا الله كحفظي الدنيا القرب أدوم صنت سيد قرآن الصلاة منها سلام ها وهو